waxaan rabaa inaan ka hadlo mawduuc ku saabsan laacibka kooxda Elman iyo qaranka Soomaaliya Cabdulxaafid oo kooxda Elman ay ganaaxday kadib markii fanaanad uu siiyay taageero sida warbixinta ay sheegayso. haddaba waxaan rabaa inaan idin sheego ciyaaryahanka xaq muu leeyahay in fanaanadiisa uu bixiyo sida caalamiga ciyaartooyda caalamiga professionalka marka fiirino waddankan aan joogo Ingiriiska horyaalka Premier League aad daawataan ciyaaryahan kasta uu xaq u leeyahay in la siiyo saddex fanaanad ciyaar walba taasoo micnaheedu tahay marka kooxda home tahay wuxuu leeyahay saddex fanaanad marka away tahay wuxuu leeyahay saddex fanaanad marka away kale ay ku ciyaarayso kooxda saddex kale maadaama ay ku ciyaaraan iyadana waxa uu leeyahay saddex fanaanad haddii ciyaaryahanka uu bixiyaa mid ka mid ah fanaanadahaas uu ku ciyaarayo oo saddexda maalin kasta uu game leeyahay saddex fanaanad oo haysta hadduu mid bixiyo haddana midda kale uu mid ka bixiyo haddana mid kale uu bixiyo taasi micnaheedu waxay tahay wixii ka dambeeya in lagu soo dalaci doono ciyaaryahanka dhaqaalihiisa ama inkamkiisa kooxda inay kusoo dalaci doonto laakiin la sii doono marka sidaa ogtihiin ciyaartooyda dad badan waxay u maleeyaan dharka markay ku ciyaaraan in la iska tuuro saas maaha dharka shaqaalaha ka shaqeeyaan kabahaas u jeedo waa la furfuraa borol waa isku xira dharkaas u jeedo waxay leedahay teamka wuxuu leeyahay qof ka shaqeeya oo dhaqa ciyaaryahankana wax ka badan saddex fanaanad ma bixi karo seasonka haddii uu bixiyana isaga ayaa jeebkiisa yacni lagu soo dalacayaa marka kooxda Elman iyo Cabdulxaafid iyo ciyaartooyda la midka haddii shuruud ay ka dhaxayso maadaama hadda sourciga waddankeena iyo wadamada kale aysan isla mid ahayn laga yaabo kooxaha waddanka jira qaaraaba lahaynba away mararka qaar oo home le garaaca lagu leeyahay hadda FC Hilaac oo kale maba lahanba fanaanad qaara adda soo qaada kuwana naaga soo qaadanaya mararka qaar waa la saan macquul maahan maalin waxay arkay koox dhan oo loogal ma wadanbo loogalaana garoonka soo gashaba way dhacdaa Soomaaliya marka la joogo marka laakiin Elman waxa ku tuhmayaa Elman iyo MCC iyo Horseedi Hegan iyo Dekadi waxaan ku tuhmayaa inay kooxo weyn oo professional ah ama ka soo agdhow haddii aysan ahaynba oo aysan lahayn awooddaas inta laag waxaan maleynayaa marka inay leeyihiin shuruudo yacni ciyaartooyda iyo ayaga markaas u dhaxeeya oo ah sourciga yacni fanaanadaha 2005 dawlaabana Soomaaliya Korea lagu ciyaari jiray iyo Cameroon laakiin shirkadda Edusad ayaa waddanka waxay keentay in ciyaalka xaafadda iyo kooxaha iyo qaranka isku mid ay noqdaan oo dadka dhan la deeqsiyo fanaanadaha marka hadda baahi badan ma jirto fanaanadan waxay Edusad ka joogtaa iyadoo buumadeeda $6 waa $6 bis ayay ka joogtaa marka Cabdulxaafid sina gar ayuu leeyahay waa haddii aysan shuruuc jirin sina wuu ku qaldan yahay waa haddii ay shuruuc jirto oo kooxda Elman shuruucdeeda uu yacni uu dhaafay ama uu bixiyay fanaanado badan laga yaabo inuu bixiyay fanaanado badan waa nin laacib oo celebrity ah laakiin waxaan rajeynayaa insha Allah arrintan inay tahay arrin يعني iska kooban aan loo baahnayn in banaan ku soo baxdo oo kooxda waxyaabaha u gaarka oo iyada inay ku dhakaata ay ahayd balse intaas ayaan rabaa inaan yani anigana aragtideeda ku daro waa salaamantiin aniga laacib Soomaaliyeed maadaama ahay fanaanada ku ciyaar mar labaad ma ku ciyaar wallahi waa dhiga waa suraa Soomaali marka soo baxay laba qol oo fanaanada fasaxay waa salaamantiin